dhammaan intaad ogtihiin anigoo ka mid ah nabadoonnada muctarafka ee hadda maamulka ama macnaha magaalada degmada Kismaayo ama gobolka ka mid ah abaar ama in dhaweed waxyaabo shaqaaqa ah wadadan ugu badan ama galbeedkan baa jiray waxaas waxaan sheegayaa shacabka marka ugu hore annaga mas'uuliyiinta iyo maamulka iyo ways ognahay in arrintii la dhaqay oo waxba wax colaad iyo wax daciifo cadiifad leeyahay iyo waxba ay ka jireen deegaanka oo ballaaran yahay gacmaha la isqabsado meel walba la isku soo dhaweeyo dhulka la wada degi karo cid fiirisa ama il godob ku fiirisa inaanay jirin baan la qaadan dhammaan dhaqanka iyo maamulka iyo dawladda Jubbaland inta waa idinku bashaareynaa marka hore shacabka deegaamadan jooga waxa kale oo tilmaamaya oo mahad ballaan u celinaya gudoomiyaha degmada ee cusub ee soo booqday deegaankan inta yareeda uu joogay ilaahay uu soo xasuusiyay gudoomiye soo dhawaaw adiga iyo madaxda kale ee sharafta leh deegaankan wax dhib kama jiraan deegaanka ugu Kismaayo ugu ballaaran waa nabad buuxdana ay ka jirto wixii dhacayna xaq sheeydaan iyo wax daran bay ahaayeen inay dhamaatay ee dadku deegaanka ka dhaxeeyo cid kasta ay soo degi karto hadda ka soo qaba shariifada haddii ummad kale oo meel ka imaatay ay soo degaan in la fiiriyo ama si kale loo takooro sax ma aha dadka waxay wax ku qabsan karaan gacmaha wada jir bay xog go'an baa meel macnaha dab uu ka jiro cidna kama ah laakiin inta degantahay intana dab ka jiro cidlaba dadka inuu isgarab dego meel wada dego talada ka dhaxayso diinta ka dhaxayso wax wada qaybsiga ka dhaxay talada ka dhaxayso annagu intaasan ognahay waxaan ku soo dhaweynayaa maamulka dhamaantiisa qaybihiisa kala mid hay'adaha samafalka dadkan in badan wixii ay tabayaan annagana waa ognahay idinkana waa ogtihiin dadka waxba tabaya dadka abaaraha halakay dadka cudurro cayayaan baakii aan lahayn ayaxba halakay isugu raacay dhammaan hay'adaha samafalka wixii meesha ka joogo iyo wixii soo gudbinaynaa bacawsadayna oo ay ka mid tahay nolosha aad ciliili u ah dadkii oo ay abaaro iyo waxyaalo badan oo waxay badan soo maray darteed dadkan adarkayso xoolihii baa ka dhamaaday maanta nin noloshiisa maareyn kara kuma jiro dhibkaas darteed waxaan u codsanaynaa ma haysano iskuul waxbarasho ilmihii waa kuwa meesha iska taagan ma haysano wax la yiraahdo macnaha hooyadii dhalaankii gurmadka degdega ah ha noqoto gaadiidka gurmadka degdega ah ha noqoto isbitaal magaalada maadaama ay xoogaa naga durqsanta habeenkii haddii ay hooyo macnaha ay dhacdo in ay foolato ama ay wax qabato wax degdeg oo gurmad oon hayna ma jirto taas darteed madaxda sharafta leh waxaan u sheegaynaa in aan dhan walbaba aan ka liidano gudoomiyaha degmadana waxaan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyihii noogu horreeyey oo yimid inta ay Jubbaland hadda ay joogto gudoomiye ugu horreeyey oo noo yimaado maanta dhibkiina muxuu yahay yiraahdo waa gudoomiyaha annagu haddii aan amniga ka warbixino amnigu runtii sidii loo baahnaa ayaanu haynaa hawshiina loo idmaday runtii ayaanu waajibaadkeeda gudanaynaa dhulku waa amni wax dhiba kama jiro maanta abaaraha ugu weyn oo cilada taagan ee ugu horeysa waa qaybta abaaraha maaragtay dadka barakacyaashaha arinta noogu yar maaragtay waxaysan waa taas amnigu laakiin 100% waxaan leenahay dhulkiina ku soo dhawaada gudoomiyaha waxaan uga mahadcelinaynaa arinta sidoo noo soo booqday oo isleenahay waa markii ugu horeysay oo noo yimaado oo rajaynayna inuu mar kale iyo mar labaadba noo iman doono deegaanku waa nabad waa ballaaran yahay
إن شاء الله تعالى وحن لنا هاي سودو dhulkuna waa amni dadku waa dadkaagii deegaanku waa laga jecel yahay waa la idinka sugayay run ahaantii barkada shariifada anigu waa markii labaad ee imaado runtii 6 sano ka hor baan anigu raashin keenay meeshan waagi iyo haddana waa isku mid oo waxba kama bedelin barwaaqo badan waa soo marnay de wax kale hadii la dhisi waa in jiingada la dhiso waa ahayd marka ilaas waxaad ku fiican tihiin حق النبتقليده بقول كيو بقول باتكوتين رنتي هذه اد بدو مهدسنتين سيده اد نو سو دويسين واريد كم هاد علينا waxaa jirta runtii population aad u ballaaran baa ka muuqda meeshan population kan waxbarasho miyaad haysataan hadda geedaha hoostooda wax lagu baran ma jira ya waxaan duqsi qoraye iskool midna ma jiro runtii maanta waxaad nasiib u yeelateen wasaaradda arrimaha gudaha oo u ah howlwadeenkeedii guud ee agaasimihii guud inuu socdo gudoomiyihii degmada socdo aniga oo gobolka Jubbada Hoose ka socda ay joogaan runtii waxaa la rabaa baahidiina kuwa ugu daran inaad hore u sii sheegataan baa aad u fiican oo inaan ka cabsan inuu ka warwaar ah dhibaato ay jirto waddanka abaar ay ku habsatay ayaa nimid ha ahaatee waxaan u soconaa inaan u koor galno waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee ay u baahan tahay tuulada inaan u koor galno haddii aan nahay maamulka degmada Kismaayo waxaan runaa marka baahiyaha aasaasiga ah ee meesha ka jira inaan ogaano ayuu ay nagu hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha tuulooyin badanna aan ka soo qabanay oo degmada Kismaayo hoos yimaada shalay waxaan joognay tuulada Fuuma nabad iyo baraaqo bashbasha ka jirtay kaliya waxa ka jira abaarta idin haysi u baahaysi wax kale oo ka jira ma jirin marka waan soo dhaweynaynaa nabadda in laga shaqeeyo waxaan soo dhaweynaynaa in dadkan wax loo qabto haddii aan nahay maamulka degmada Kismaayo baahiyaha aasaasiga ee aad sheegateena insha Allah wasaaradda arrimaha gudaha hormuudkeeda aan la joogo agaasimihii guud sida MCA-yada waxbarashada iskuulka maamulkii xafiiska tuuladan waxa soo dhan in la diyaariyo ayaan insha Allah ta'ala rajaynaynaa aad ay u mahadsantihiin waana ku mahadsan yahay gudoomiyaha cusub degmada Kismaayo ahna duqa magaalada asagoo hadda magacaaban muddo hal bil ibar ku siman ama kawan yarba inuu ida soo booqdo saaki tuulooyinka degmada Kismaayo hoos yimaada qaarkood uu booqdo aad uu mahadsan yahay annaguna waan ku garab taaganahay oo waan la soconaa intaas waxaan ognahay degmada Kismaayo gudoomiyaheedii weli inay soo gaarin oo hore halkan uusan imaanin 7 sano ama 6 sano ama 7 sano ayuu magacawnaa weli ma imaan halkan laakiin saaki waxa nasiib u yeeshay gudoomiyihii degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Umar Abdullaahi Faraweyne oo bil iyo bar jooga saaki inuu yimaado tuulada barkada shariifada aad aan ugu soo dhaweynaa dadka reer barkada shariifadana aad ay ugu faraxsan saakin annagu maamulka ahaan waxaan u diyaarnahay inaanu iskarab taagno dadka xoolo ka dhamaadeen iyo deegaamada abaartu ka jirto safarka iyaga soo dabcan intaas uu kamid yahay waxaan rabaa marka dhowr qodob baan rabaa ka hadlo dhanka abaartu waa intaas waxaanu hadda awoodi karnaa rabnaa inaanu biyo dabcan barkadaasu 2 booto biyo baan u shubaynaa maanta haddii ay wada qaadi kartaan haddaan ku shubayaa haddii kalena 2 maalmood baan ka dhigaynaa ninbaa waxaa la yiri dabaal ma taqaano wixii raysku sin inta dabaasha waxa yahdaa inta lagu soo gaarin dabaasha yaqaanay marka intaan waxeelno biyaha waanu hayn doona hadaalay ama 2 maalmood aan u keeno ama maalin aan keeno biyaha waan ku qaybi doonaa waxaan kaloo rabnaa inaanu ka qayb qaadano waxyaabaha la keenayo deegaamadan roob ka diin inaanu priority number 1 ay noo tahay maanta waa ahad isniinta ama talaadana waxa weeye ilaan gudoomiye meel yimid waa wax ka daba yimaadaan iyadana raashin baanu keeni doonaa hadii alla idin shalay waxaanu soo marnay
mafhuuma intaasaan kala hadlaynay iyo nabad in laga shaqeeyo deegaankan waad ogtihiin shaaqooyin baa ka dhacay dad ehela oo wada dhashay oo deegaana Soomaalidu waxa taada oodi ab ka dhow dadku waxay isku xigaan sida u degan yihiin laakiin iskuma xigaan sida qabiilka u yihiin dad walaala oo ehela oo wada dhashay oo baasheedaan isku diray arinta waa laga dawoobay anoo markaan xafiiska imi gogashi u horeeyay waxaan u maleeyay anoo 15 cas jooga yaan isugu yeeray gogashi aanu bixinay qodaxtirka qodaxtir waxa la gogashi markii meel la degayo waa qodaxanta laga ururiyo saasa ma anu dhaqanka nabadoon baan ahaan jiray aad baan dhaqanka ugu dheereeyaa qodaxtirkii waa dhignay waasidii waan u yeernay barnaamijkaas nabad waa dhamaaday dalku waa nabad wax sidaa kama jiraan nin kastoo reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayooda gaar ahaan deegaanka galbeedka meeshuu rabo degi karaa mari karaa oo ganacsan karaa qofka mari dhulka Ilaahay baa leh dawlad baana mas'uulka idinka ala ku beeray waxa loo baahay marka in nabad lagu helo nabaduna waa furaha nolosha colaaduna waa baabiyaha nolosha qof baa ku dhimanaya qof baa ku cayroobay marka dhamaantii soo diyaaruna nabadana ka shaqeyno ma sha Allah ta'ala ma santihiin waxaanu samayn doonaa guddi la yiraahdo guddiga xalinta khilaafaadka ma aha guddi khilaafaad anoo khilaafaadka ma abuurno guddiga xalinta khilaafaadka oo deegaanka nabadii soo ilaaliyo jawaab odayaashii waa joogaan iyaga iska aba miinis iyaga aan aqoonsanayna in nabad ka shaqeeyaan nabadoon maxaa la yahay Soomaa nabadoon ma ka shaqeeyaa nabad buu doonaa Soomaa dhinaca kale loo bedelo waxa la guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka marka haddii khilaafaadka la yiraahdo wuxuu noqonayaa shida abuurayno marka intaas waa ku sii dalna waa guddiga xalinta khilaafaadka waxa u yar haddii oday iyo habar iyo oday iyo islaantiisu habar laba waran gabdhaha qodob badan hadday maris qariyaan xataa yalse waxay baahan tahay xal in la yiraahdo wareerka iyo gobol noolaad oo kaas oo khayr qabo oo baraka la idinka rabaa marka dhaqanka Soomaalida aan ah in khilaafaadka la xaliyo waxaan ka samayn doonaa meelaha aan xukunno oo dhan haddii alla idmo isagoo inuu ka shaqeeyo danaha dadku wada leeyahay oo caamka ka dhaxaysa reer Shariifad oo deegaankan degan waa idinka mahad celeynaa sida diiran iyo hadaladiina macaan waxyaabaha kale oo sida maxay ahaydey dadka xooluhu ka dhamaadeen iyo arrimaha bulshada waxa ka dhiman oo MCH-yada ha noqoto ama iskuulka ha noqoto iyadana waa bayeetegelna hadda alla idmo dadka xooluhu ka dhamaadeen haddii inta dadka xooluhu ka dhamaado magaalo lagu xaroodo tii dhibaatada waa jiraysa laakiin barnaamij baan diyaarin doonaa dadka in loo xoolo gooyo kaala loo jeesmaan kaalo dadka intii aymo wala Soomaa marka haddii qof mii joogay xoolo ka dhamaado magaalo tago at least wax wada ku dhacaya ama qof uu dilaya ilaa waxa ma haysto qof inoo la rabaa laakiin qofku xifadu yaqaanay haddii lagu kaalmeeyo konton neef iyo dhowr saacad iyo waxaas loo gado dib u dejin baa leeyahay qofku shaqadu yaqaanay uu ka shaqeynaya marka arintaasuna waxa barnaamijka waa diyaarin doonaa in dadka la xooleeyo oo dadka cad lagu sii deyn ilaahayna waxaan ka baryaynaa qofka wax weydiisanaba ilaahay inuu noo fuudeeyo kaan raano war xoolo noo keen yiraahdo waa idin sii marka inagoo wada soconna oo isku duuban oo ka shaqeynayna danaha dadka iyo deegaanka waxaynu noqon karnaa dawlad haddii alla idmo haddii aan kala jirno waa inaan kala socon waa inaan wada soconna dawladnimo kama shaqeyn karno marka waxaan rabnaa inaan wada soconno meel wada jeensano dawladnimo ka shaqeyno waddanka waad ogtihiin oo kooxo sharwadayaal ku jira haddaan nabadda laga shaqeynaa cidina idin maamayso waxaan rabnaa wax alla iyo wixii nabadda qabad ku ah inaan ka hortagno saa diyaar Soomaa meeshuu doonaa ka yimaado noocu dhismadu doon ha lahaado nabadda anoo ballan Soomaa inta waxa xigta dawladnimada waxay ka fiican tahay qabiilnimada dawladnimada dadka u gargaarta
dowladnimada naxariis ilaah markii laga soo tago dadka u naxariista inta jeexsba dowladdu shaqaysaa annagu intii naasaanu jecelnahay inaan u shaqayno biyo u keenno raashin u keenno ammaanka oo sugno waxaas ka shaqeyno wax kale kama shaqayno wixii intaa dhibaato kana waa la dirirnaa marka soo dhawaada barasho wanaagsan mar labaad inkaad maqasheen guddoomiyaha waa ninkan dowladda aad jeceshihiin deegaano badan baa maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha haba u badnaatay dhinaca waqooyiga magaalada Kismaayo sanadka hadda tagay ee shalay ugu dambeysay daraad 2021 yaan tagaynay laakiin socdaaladan hadda galbeedka aan ku imaanayno magaalada waa meeshii saddexaad 2 bilood ka hor waxaan tagnay Dalsan waan soo aragnay shalayna waxaan joognay Fuuma maantana halkan magaalada saddexaad deegaanka saddexaad oo maaragtay galbeedka degmada Kismaayo dhaca oo aan nimaadno waan ognahay xaqiiqdii isha macallin meeshan dad xoolo dhaqataa u badan laakiin waxaa la yiraahdaa xoolo dhaqato macnaha waxaa la yiraahdaa dadka sidan oo kale waxay u baahan yihiin laftigooda waa reeguraana ma aha waa dad degan xoolaha laakiin markii roobka uu oo barwaaqo ay tahay xoolaha ay ka soo dhawaadaan laakiin abaar haday dhacdo xoolaha way fogaanayaan laakiin dabcan meesha dad baa ku nool si la sheegay ilaa 200 oo qoys in ka badan baa ku nool xaqiiqdii inay helaan waxyaalaha aasaasiga bulshada u baahan yihiin sida waxbarashadii iskuul waxbarasho inay helaan goob caafimaad in la helo meel maamulka ay ku shaqeeyaan in la helo ma garanaysaa police station oo hadda ma garanaysaa ciidamada nabadda suga hadda meesha geedkan baa station u ah waana uga mahad celinayaa taliyaha amniga areada xaqiiqdii waxyaalaha baahiyaha kow ka ah bay ka mid tahay station meel wax lagu xiro in la helo waxaan ku faraxsanahay in deegaankan si dhib yar loo soo gaari karo Cabdilla Biroole dabcan ayaga laftigeeda waan tegaynaa waa magaalo weyn waa muhiim in la tago laakiin waxaa weeyaan magaalada Kismaayo oo in yar ay u jirto deegaankan inuu iskuulna lahayn MCH-na lahayn wasaaradda waxbarashada subax intay imaadaan haddana caafimaadka haddana ay noqon karaan anaha aad baan uga xumaa insha Allah taala waxaan u sheegayaa dhammaan hay'adaha dawladda iyo kuwa dawliga aan ahayn in ay la imaado barkada sharifada laga sameeyo iskuul laga sameeyo MCH xarun caafimaad musqulo iyo wax walba oo maartay dadka ay u baahan yihiin baahiyaha runtii waxba kama bilowna meeshan shalay meesha aan tagnaa Fuuma waxay ka fiicnaayeen waxay dadka way is abaabuleen iskuul bay iskood u dhisteen idinkana waxaa la rabaa bacweynaba ha ahaadee inaad wax aasaasataan because caalamka maanta hadda dawladda degmada Fiiri waxaad hoos timaatiin degmada Kismaayo degmada Kismaayona waxay hoos timaadaa gobolka Jubbada Hoose gobolka Jubbada Hoosena wuxuu hoos tagaa maamulka ama dawladda Jubbaland waxay hoos tagtaa dawladda federaalka Soomaaliya marka waxa waa jaranjaro gacanta ugu hooseysa la rabo in ay ogaato waxa weeyaan waa gudoomiyaha degmada gobolka inay la ogaadaan wasaaradda arrimaha gudaha insha Allah waxaan keeni doonaa dhammaan wasaaradaha oo idil haday caafimaad ahaan lahayd waxbarasho xanaanada xoolaha beeraha qolo walba waa inay imaataa oo doorka ay ku leeyihiin waa inay maartay ay qabtaan marka insha Allah taala aad baan idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad xilligan adaga lagu jiro oo abaaraha ah inaad soo banaan baxdaan oo noo imaataan soo dhaweysaan gudoomiyihiina cusubna maanta aad suuraysataan baahiyihiina oo arko waxaan ku faraxsanahay in laba booyadood oo biyo uu idin keenayo raashinna uu keenayo waxyaalaha Kismaayo ka jira hay'adaha waxaan isku haysanaa oo hadda anaga wax walba oo degmada Kismaayo baa lagu bixiyaa magaalada hatta kuwa dhinaca idinka jira waqooyiga oo goob weyn ay ugu sokayso waxa weeyaan waa lama taga badi ayadoo aamin ay tahay oo la wada og yahay saaka ciidanna maana soo qaadan wafdigaanaga magaalada Kismaayo waxaan u soo soconay in ka yar 20 daqiiqo xaqiiqdii wax intaas la eg in dadkan ay meeshan ku rafaasanaadaan waa waxyaalo aan aqligeena gali doonin insha Allah wax badanna waan ka bedeli doonaa